ninkii diin ma wadaan waa la ogaaday Soomaaliya loo ogaad waxay ku guulaysan jireen waxay ahayd Kismaayo boosaasinta ka dhaxaysa ay tardo kula dirir jireen ciidanka iskaga keenan haddaan toban meelihii ugu hereen hadday walaxay haayaan ay meel ka soo dhuraan ay og yihiin meesha cawada Yuusuf Dabageed iyo xildhibaan Sanbaloosh iyo xildhibaan Jacfar la yiraahdo kan waa nin mursada ilaahay yaa jecel shabaab cawada hilbiis hadii loo kariyo halaga cusbeema leh iyo cali jeeto iyo cali iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan cali jeete oo asagu tusay dadka Soomaaliyeed in shabaab lala dirir karo ay qoraysitaan oo qoraysi Soomaalidu sidato ay dadka ka fulaysan yihiin ay diin la'aan yihiin wixii ilaahay oo u kaalmeeyay oo ummadda islaamka ah oo iska celida ilaahay u kaalmeeyna علي جيتي دتك tusay inaba lala dirir karo shabaab aan waxa iska jiijifnaa geedaha nutara xoog haday haystaan ma keenan oo shabaab ma keeni karaan hadda dadkaan oo labadooda alwaa iska kiin jiri kara waxaan ogahay in xoog aniga laga badan aysan shabaab meel u joog wallahi billahi tallahi meel intaan oo shabaab u joogta inay jir geed intaan oo ciidano shabaab u hiridaa ma jiro dadka Soomaaliyeed kuma yaal intaan oo kalmugu isku keenayaan Kismaayo boosaasinta ka dhaxayda waxa joogay isku keenan waxay wadaan xabba kama soo baxaysa ilaahay raali ka hayn waxa aragto xaaraanta ay ka shaqeynaan waxa aragto xaq darrada ka shaqeyn xaq darra ilaahay ma gacan siinayo adika sidiinaba waxa daamantiin ilaahay dhimasho lagu xukumay waqtigiisa qof dhaafaana ma jiro haddaad dhimanaysan dhimasho ilaaha kugu xukumay wixii ilaahay kugu tala galaa ku dilaahay adoo sharaf loo sharafkaaga difaaca oo diinkaaga difaaca oo dawladnimadaada difaaca oo nasabiyadaada difaaca ina dhimatid haddaad nooshaana sharaf adoo leh oo sharafad ku xaragootood kula sheekaysato ummadda musliga gaalaa leh inaad lahaatid oo sharaf ku loolaatid oo inta iyad ka tagtid anigu hadda adigu deegaanka iska joogtay meesha rabtiin oo u safitrimaho aniga nimankaayna beledka jooga waxaan rabnaa inay ka soo lugayno Itoobiya tuulaba cawo seexano isbuucaan idila joogno baadiyaha alfooliya idila aadno iskuulla idin keeno ceelal aan idin qodno saldhigya idin sameeyno isbitaalla idin sameeyno war ilaahay idgu dhaarshe dagaalka waxaan ku jiri jirnay anagoo xabada gadanayna waxaan ku jiri jirnay badarka cunayna anagoo gadanayna waxaan ku jiri jirnay dhaawacayna anagoo daawaysanayna tardanikii ku dhaawacma diyaarada ugu imaanay oo ka qaadi dhaawiciin ogaada tardanikii ku dhaawacma dhaawiciina diyaarad dawla iyo timaada daqiiqada kadib waxay ka qaadi tardo haddaad ceel qooxlo ku dhaawactay waa ka qaadi kuwii horena waa ka qaaday haddaad hawaal xuseen ku dhaawactay waa ka qaadi haddaad aadi wal ku dhaawactay waa ka qaadi haddaad xalfoolay ku dhaawactay waa ka qaadi dad guulaysta haddaad aragtiin waa dad wixii lagu ballamay xijiya waa dad ayagu kala dambeeyo is xukuma algu u yar hadii aad caleema saartaan haddaad amarkiisa qaadataan waa guulaysanaysaa waxaad ku ballataan haddaad fulisaan waa guulaysanaysaa waxa intaas dheer Itoobiya dagaalka laga soo bilaabay nimankii xawaalo Itoobiya deganaayo Itoobiya dagaalka soo bilaabay tardayda la jooga deegaanka hadday ka xoreystaan shabaab waa iska joogi jireen waa iska joogi kareen kuway dhax ku soo mareenoo waa soo wateen maxaa inta laga soo raadiyay inta waxa laga soo raadiyay adig kale in la idila xureeyo adu ka la dhasho cadawadi haystee in la idiga xureeyo walaalihiin iyo adu ka islaamku in iskaashatiin aad la idiga xureeyo adig intaasay ay 300 kilomitir u soo socday cibaado ilaahay cabsi ilaahay in ka shaqeynaa xoolo kama fikiro shabaab la dagaalankiisu cibaado ilaahay waa ogaada cibaado ilaahay waa dhimasho waa la dhimana wala hadaad dishana aad janna gili haday ku dilaan aad janna gili inta laga hela taasni dhur la heli kara waa la dhimana oo qof joogay ma jirto wala la yaalo soo dhawaada waa mahadsantihiin aniga meeshaan iskama imaan maanta warkii horteeyaa la dhameeyay xildhibaanka iyo gudoomiyaha gobolka qayr Allah siiye kitaabay jubadi siiyeen kitaabay idin gelsheen ahlna waana ballan iyo ahdi ilaahay ka marqaatiyahan galna
laba qofoodna laba nin hadday ballantaan la yidhi ilaahay saddex ku ah haddii qof ka miduu ballanka ka baxana qofka ballanka ka baxa wax ka halaabaane qofka looga baxay wax kama halaabaan war ballankii nimankaasu idila galeenaan idila wada gelaynaa waa ballan iyo ahdi anaga waxaa looga baahantihiin oo xoog iyo xoolaa waa idila garab taagana mana idiga baxayno adigu ha ka bixinaa ballanka oo kuwii meelahan idigu caraafi jiray iyo meelahan idiga soo wacaan nimanku waa tagaane waxa laga takalo waxay war anaga nima deegaankaana shirka lagula ahayn dawladnimana aan loogu imaan ma yeelayno mana yeeli doono adikoo dhan haddaan raxtiin ma yeelayno weligaynana ma yeeli nima deegaankaan shirka lagula ahayn oo lala deganayn dawladnimana aan loogu imaan iyo walax Soomaali ku heshiiday ma yeelayno weligaynana ma yeelin adinku haddaad yeeshiinna idiga yeeli mayno waxa idigu yar hadda qoryaha daba jeexiyaa iyo waa u jeedaa meeqaan keenay waxaan keenay 60 iyo 70 wixii yimaaqaane ee wada ciidamada idin oo kale lama haydino waaba leedii keenay xal idigu hayna waa idila howlgalayaan baabuurtu waa joogaan maqaladik qof ma leh qorgu dadku ka dhaxaya haba baabuur hasaaraado ama daba jahaad ama ka adu ina hashi ka bixida bis aad dheerta cadawga adu aad ku dilaan cadawgaygu waa anaga kuwa waaweyn oo gadayno ama gadi doona ama soo gadnay shirkaan ku nahay